ما شاء الله تبارك الله أرتا آد آذا إذن كوكو مهد علينا يا dadka meeshan ka soo qayb galay oo halkan yimid aadan idinkugu mahad celinayaa dhalinyarada iyo dadka dhan aadan ugu mahad celinayaa ma aqaan galabta siyaan u cabsanaa because ma ogi waxa igu dhacay laakiin alxamdulillaah marka waxaan rabaa dhalinyarada iyo waalidiinta inaan ka hadlo maasha Allah waalidiinta especially Soomaaliyeed oo wadankan ku nool oo dhashay dhalinyaradan quruxda badan especially oo wadankan joogta marka hooyooyinkii iyo aabayaalka khayr Allah siiyo dhalinyarada addictionku ku dhacay waa addiction waxa ku dhaca dhalinyarada addictionka ku dhacay waa dhasiis waana wax laga daweyn karo badadkanagii ma fahansana oo uma badnin inaan fahanno cunugii waxaan leenahay inkaar qabahan darooga u qaata daroogadu waa addictionkiina waa wax la daweyn karo cunuga hadduu kaa jiradaba dhakhtar baad geysaa waxay u baahan yihiin marka carruurtii in lala dadaalo oo la geeyo meel treatment iyo looga dhaqo dhibaatadii haysatay bad annagii wadankii waa ku cusubnahay daroogadu waa nagu cusub tahay cunugii wuxuu isu arkaa inaan waaridkii jeclayn waaridkii waa jecel yahay cunugii laakiin meel oo wax ka qabto ma garanayo marka waalidiinta hooyooyinka iyo aabayaalkaba waxaan rabaa oon ugu baaqaa inay carruurta suboorgareeyaan ooy ogaadaan cunuga dhibaatada haysata cunugii qolba uu isku xirayaa markuu cunugii qolka isku xiro qolkii waa inaad ugu tagto cunugii la sheekaysato maxaa hooyo ku haysta maxaase aabba ku haysta wuu kuu sheegaa cunuga markaad la sheekaysato dhibaatada haysata bad markaada la sheekaysan cunugii waxba kuu sheegi maa wuxuu leeyahay waaridkii maba ku rabo wuxuu isu arkaa asagu inuu dhibaato galay cunugii dhibaato ma gelin laakiin dhibaa haysta wuxuu isleeyahay addictionkaad aan cunayso haddaad hay noqoto waa kaa baaba'a laakiin ka baabi'i maayo wuu sii dhibaataynayaa marka khayr Allah idin siiyo Yuusuf iyo waan u duceynayaa ilaahay khayr ha siiyo hadda ka hor 2 years ago aan mar u imid asagoo dhalinyaro badan maasha Allah haya ilaa haddana wuu wadaa Yuusuf khayr Allah ku siiyo keep going hore u soco gadaal ha u noqon waxaan waliba idinka baryayaa in laydin soo waco kaliya ha sugnina albaabada garaaca hooyooyinka marar badanna tiifiyada ka hadla tusiya inaad dadkiina caawin kartiin dad badan ayaa guryaha ku jiro meel ay u raacaan aan garanayn inay canugoodii tariid gareeyaan hooyooyin badan aabayaal badan aan garanayn ilmaha ay wuxuu ku dhaceen sida hadda wiilasha hadlaayoo kale maasha Allah tabaarakallah waxaan rabnaa inay hadlaan sida Cabdiraxmaan oo kale Cabdiraxmaan waan arkay maasha Allah isagoo hadlaya waa jeclahay ilmaha hadla you guys speak out ha qarinina storydeena ha qarinina sheega dhaha sidaana nagu dhacday dhalinyarooy adinku ha aadinina halkaani ka soo laabta dhaha annagay nagu dhacdo waan ka baxna waxaan leeyahay wiilasha yaryar I know inaadnan af Soomaaligan ku hadlaa bar fahmayn laakiin galabta dhanaa lagu hadlaayay English marka waxaan rabaa hooyooyinku inay ifahmaan iyo aabayaalka kuwa jooga iyo kuwa naga maqanba hooyadii waxaa laga yaabaa cunugii meeshaanay keentay ama cunugiiba meeshaan ay keensatay waxaa laga yaabaa inaysan mustamarka ka soo qayb gelin oo aysan macnihiiba fahansanayn u sheega waca
imaada dhaha waaridaynta ilmaha hala suboor gareeyo irdaha adinkuna garaaca khayr allaha idin siiyo tifiyada geliya ma maqlo Can you hear me now? Okay. marka khayr badan allaha idin siiyo in waxaan leeyahay wariyayaalka wax badan aad wax ka ogtihiin tifiyada geliya waxa la leeyahay hebel waa dhintay overdose oo dhinta hebel waa tabcaan isbitaala la dhiga lama rabo waxa la rabaa inaan sidaan ahaano community ahaano hooyooyinkii aabbayaalku waa yaryihiin waxa yimid hooyooyina lama bahayo waxa la rabaa waaridaynta in la waxyi geliyo inaa irdaha garaacno war waa baabaanay war dhalinyaradeenna waa baabaada war xageen ku soconaa waxaan ku soconaa waa daroogo yaa soo haraya dadkii waaweynaa soo haraya dhalinyaradeenna waa baabaada waxay ku baabaada daroogo iyo xabad marka waxa la rabaa at least inaa iswaxyi gelino oon isu yeerno oo walaalayaal khayr allah idin siiyee cod dheer iyo cod gaabanba lagu hadlo oo la raadiyo sidii dhalinyaradii loo treatment garayn lahaa oo waaridayntii loo waxyi gelin lahaa hooyo kasta waxay ku leedahay haddaa la sheekaysato wiilkaygu waxba ma qabo waxaad arkay hadhowda wiilkii oo dhacdhacaaya oo irdii laga xirtay isnaad good ma ahan wallaahi boqolaal 10 canugan habeen irida ka furo oo hooyooyinkooda irida ka soo xirteen aan anigu gurigayga seexiyay oo iyiri habar yar irdiyana laga xirto marka waxa weeye ilmihii in la suboor gareeyo oon loo arag cunugii inuu dhintay waxay ku leedahay cunugaygi mid kala duufsaday ma duufsan markay isu yimaadaan ay tashadaan ay dhaan xageen tagnaa mid gaar wuxuu duufsadaa ma jiro laakiin inta isu yimaadaan ay tashadaan marka ma ahan in cunug la eedeeyo ma ahan ilmuhu eed male waaridkuna eed male laakiin waa in la isu yimaado community la noqdo oo gacanta la isqabsado waxaan maanta arkay saasaan niman u ag marayay kulaha mid 4.5 aan wariyaa annaguna intay waxaas ka hadlayaan aawa ilmahoodii ciyaalkoodii aaway caruurtii waxaa tagay iskuul markaa tagto waxaad arkaysaa ayadoo lagu leeyahay caruurtan hooyooyinkoodii aabayaalkooda midnana ma yimaadiin war caruurta daba socda oo fiiriya oo gareedkooda fiiriya oo la socda iskuullada oo caruurta haddaadnan ilaalin ifan waaridka iskuullada yimaada ayaa caruurtooda wax la baraa oo la xisaabtama macalinka iyo principalka iyo attendedka iyo qof walba marka waxa weeye dadka nagii wadankaana lagu soo daajay alxamdulilaahi rabbil caalamiin laakiin waxaan u baahanahay in aan kuwa naga wax bartay oo aqoonta leh inayna hor kacaan oo ina yiraahdaan khayr allaha siiyay war ka soo baxa geedaha oo kaalaya wax arka oo nala tusiyo meeshaan u dhaqaaqi lahayn annaga ingiriiskii ma naqaan systemkii wadanka ma naqaan laakiin dad badanaa wax noo bartay oo wax yaqaana marka kii wax bartay waxbarashadeeda aniga igama baroona hadday qaarkood dhahaan waa noo dhammaata laakiin sida hadda yuusuf oo kale sida wariyayaalka oo kaloo soo daaya wixii dhaca maasha allah waxaan rabnaa dadkeenna wax bartay inay dadka kale waxyi geliyaan oy dhahaan warkaalaya sidaana wax loo qabsadaa iskuulaan hadda ka hortagay markaasaa waxay dumarkii yiraahdeen maalin walba iridaana laga celiyaa because af ma yaqaaniin say xaqooda ugu doodaanna ma yaqaaniin principalkii inta u tagaan qof ay af yaqaaniin u haayargareyn wuu haayargareey wixii waa lagu qaban laakiin waa inaad adigu hadashood codkaaga bixiso marka dadka nagu wax badan oo u baahan yahay marka iga raalle ahaada waxa weeye waxaan iri xataa ma aqaan dhalinyaroy sida aad samaynaysiin wiilasha yaryarow keep going kuwa kaloo idinka maqana u yeera speak out qof walbo ha give up garayn lifekaaga
don't give up the life. Okay, waa ku dhamaata heesdhihin. You got everything, you guys. Don't destroy your life. Thank you guys. Yes, give it up for Hoya Hawa. Thank you. Aad baa u mahadsantahay Hoya, waa mahadsantahay.